lafta dhabarku ruuxay jabtaa leexan kari maayo laxaadkay u kowtahay haddana laguma soo darine waad laangadhaysaa kolkay lagu ku liigtaaye ma lugeeyo ruuxaan lahayn hooyo ku lamaan meel buu la aadaa qofkaan laabta kaga seexan 6 sano qof ay keentay oo laayac ka ilaali 2 jeer nimaan toos u jiqin oo eebbi kala laabtay luxud ay ka aadaa jiroon gelin ku laafiyoonne fadlan channelka subscribe noo dheh gambaleelka fur si ay kuu soo gaaraan fiidiyoodeen aad u noqoto qofka ugu horeeya daawada like share comment qurux badan waad mahadsan tahay bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan idin salaamay asxaabtayda qaaliga meel walba adduunka ka joogtaan nabad iyo caafimaad adaan idin rajaynayaa waqti walba idin tahay waqtiga ha idin wacnaado ayaan idin leeyahay asxaabtayda qaaliga waa mahadsantihiin meel walba iga daawanaysaan nabad iyo caafimaad ku daawada ayaan idin leeyahay waa walaasheen xushma iyo mar labaad فيديو عصب أركت عصب صور هذا يعني ذي لا يهي زين أنا قاعد عارفة قبل إن عارفة قتنا إذا كنا إذا رجينا يا صور هذا ولا عليه قالقة فن هدي أنا قاعد عصب تهجنا الكسبسكرايب نوره أي تاي مركبه رئيس صوب وقتي قبل الكفر سياد أوقاتد وحول بقى أنصار لجنا أو هالكاس أول ساعته لايتنا نقدس وكما سنتهاي أدي أهرن ولا جوكتي أدينا لايتنا قدس comment qurux badan oo reeb ma sha Allah dhiirigelin ay anigana ee tahay adigana waan kaaga mahad celinayaa adigana hadda i daawanayo ayaan ku leeyahay soo dhawaada asxaabey waxaan halka maanta aan ku haysanaa alaab yar qurux badan oo ma sha Allah face mask cajiib ah wajiga aad kugu qurxinayo ya anta agent markii la yiraahdo ya dad badan aa dhihi doono maxaa dhacay da'deena ma la yaray rabaa ya da'deena عمركينا لما يراي كري لقفنا سو غارين يعني waxa la rabaa maqaarkaagi wax yar oo ku qurxinayo ma sha Allah kaaga dhigay waji baby ku sameeynayo ayaa halkan ku haysanaa waa moos sida u jeedaan iyo aloe vera gel alaabtaas ayaan ka hagaajinaynaa face mask aad u qurux badan oo waxtar caafimaadna ku leh caafimaad badan aad ka dhaxlaysid wajigaagana ma sha Allah سكين كاد سكين قروح بدن وما شاء الله سكين عافمات قبه سكين دلالا يا قروح بدن وما شاء الله كسينايو لابلاب كوجهك دودوبك أما كتكدودك أما عيوبك هاد بقف بسيط ويقانو وكالة دقالة ما يسهرت ألابتان وجه فيريسن ما شاء الله هيك هاga dhigaysa wajiga ku kilingareynaysa ما شاء الله bararka indhaha hoostoodii meelahaas ka galo madmadowga يعني وجهك دالك iyo jactadka waxyaabaha ka muuqdo dhan ayay ka saaraysaa alaabtan waa alaaban ku dhahay inaba aan caadi ahayn ya ma sha Allah ku dhahay lagama sheekeyn karo hawsha ay qabato meesha lagu ma soo koobi karo waxtarkeedan waa waxtar cajiib ah ku dhahay ma sha Allah waa alaab yar natural ah oo fitamiin leh ma sha Allah whitening leh anti aging leh wax kastaba lahaan ku dhahay shaqo fara badan aan kaaga baahnayn juhdi fara badan iyo hawl fara badan aan ku gelinaynin jikadaada ka helaysaa jab yar moosa soo qaadanaysaa hadii aad artaan haysatid hadii ayadoo geed ee guriga kugu taalay kaaga bixisana ma sha Allah ayadoo organic ah haysataa oo warshad aan soo marin jab yar soo jaranaysaa jabkaada mooska soo qaadanaysaa mooskana waa inuu ahaada moos aad u bislaaday aniga ma aanan idii soo duubin mooskii aniga soo jarjaray ayaan ku soo riday qof kastana wuu fahmi karaa mooska midka ceyrinka iyo midka biseylka waa mooska aad u bislaado dhibcoolaha noqday jab yar ayaa u baahan tahay wax weyn uma baahnid dabkaas mooska yariiska ayaa soo qaadanaysaa baaquligaadii qaandadaada soo qaadanaysaa ku dhaa ma sha Allah ya halkan la soo kaalay dacarta geedka hadii gurigaaga baxaysana kaba si fiican oo ku dhaa ma sha Allah ayadaaba ka sii caafimaad badan waayo waa waxa adiga ayadoo fresh ah hadda aad soo jaratay wajigaadana ma sha Allah aan ku dhahay hadii aad miim lahayd laablaabka kadkadoodka dadka indhaha suniyaha dhaxdooda
meeshaan fiida la dhahayo sanka afka korkiisa sanka saas meelaha daamanka kadkadoodka hadda inay isku dhacayaan aamoodid haddii aa laheyd maanta alaabtan waa ugu raysanaysaan ku dhah haddii ay kugu soo socotayna waad ka hortagaysaa ka hortaga ku samaynaysaa alaabtan waxay kale kaa difaacaysaa yacni ka hortaga falaaraha cadceedda ah maanta oo kale suuqiya aaday waa soo shaqaysay cabaar baa soo socotay bacdeen marka wejigaadii waxaa imaanaysaa nuuc kale soo maaha alaabtan isku qaban ku dhah wejiga wuu ku qaboobaa ku dhah qaboob maasha allah dareemaysaa ku dhah oo yaxdi ah yaa way kaala dagaalamaysaa qoraxdaas waxaas iyo makaarka iskiinkii dhinta wixii kaa saarnaayo dhan nadiif maasha allah lahubay kaaga dhigaysaa mooska waa soo burburinaysaa dacarta ayaa sidaas ugu darsanaysaa waa isku qasaysaa si daqiiq ah oo aad ayaad u jajabinaysaa ilaa uu kaaga noqdo kareem camal uu kaaga noqonayo sidaas ayaad usoo jajabinaysaa ha ka daalin marka asxaabi waxaa la rabaa alaabtan horta caafimaad inaad ka heshid iyo qurux ma ogiye dhibaato kaloo caafimaad horta ma kuu geysanayso waa alaab caafimaad leh waa waxaad ka samaysay wixii aa og tahay jikadaada iyo gurigaada aad ka helaysid qarash badan oo kaa gale ma ahan caafimaad inaad ka dhaxashid iyo qurux ma ogiye waxyaabo kale hadda aad kala kulmaysid ma lahan wejigii wuu kuu cadaynayaa wuu kuu qurxinayaa jactadkii miimtii kadkadoodka laablaabka waxaasoo dhanne wuu kaa kelin garaynaa wejigaada weji maqaarkiisa ifaayo aad u qurux badan wuu kaaga dhigayaa ha ka caajisin ha ka daalin laano marka waxyaabaha kiimikada way soo dhaqsadaan sidaan ku naqaano oo yacni maanta iyo beri haddii aad marsatid natiijo ayaad ka dareemaysaa laakiin waxa markii dabiici ay yihiin waa inay jirkii lasoo falgalaan ee soo shaqeeyaan ee muddo soo qaataan ayaa la rabaa adigana waxaa lagaa rabaa inaad dhabar adeeg samayso oo aad dhabar adeegto ilaa aan natiijo aad ka gaartid yacni waxaana loo rafaadinaa layiri raaxadooda lama helo adiga caafimaadkaada ku xiran wejigaada quruxdiisa ku xiran yacni wejigaada dhalintii iyo da-dii kaa muuqa lahayd waxyaabahaasoo dhanne way kaaga hortegaysaa way kaala dagaalamaysaa marka ha ka caajisin oo ha ka daalinaan ku leeyahay ma u malaynaya maanta qof gurigiisa dacartaas laga waynaa inuu jiro wuu heli karaa haddii kalentana wayba kuu talaalanta soo maaha iyo jabkaada hooskaa soo qaado waxtar caafimaadna aad ka helaysid qurux iyo dhalaal iyo maasha allah weji yaroo shacni laho qurux badan markaa dadka lasoo dhex gasho ifaayo birqaaya waad ka helaysaa soo tijaabi wixii oo faa'iido ah ka hesho commentigii iigu soo qor wixii oo markaa haddii aad hore u isticmaasheen adinkane iisoo qoro qofkii natiijadiisa arkay ha iisoo qoro asigana qofkii hore u isticmaalay asigana commentiga ha iigu soo reebo waa mahadsantihiin asxaabteyda qaaliga mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin inaa idiin mahad celiyo kama quusto asxaabey wax yaraa ii dhiman daawashaha laysiiyo like sidoo kale viewska waa ku mahadsantihiin subscribe iyo saara haddii aad ku cusubtihiin channelka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.